dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad baan idin salaamaya akhyaarta naga dhegeysanaysa halkan. Maanta oo ay bishu tahay 22 January 2022 bishii koobaad ee sanadka ayaan waxaan jeclaysanay bal inaan ka hadalno fanka, waxyaabaha uu fanku habka uu soo bilaabmay. fanku oo markii ugu horeysay fanku bilaabmay ay ahayd waqtiyadii afartaniyadii oo sidaan ognahay fanku ahaa gaar ahaan uu fanku ahaan jiray beriga hore qaabkii fanku habkan ciyaaraha Soomaalida oo kale uu ku bilaabmay imika heestan dhegeysanaysan oo kale oo markii hore qaabka golka fuulka ay uu fanku ahaa oo reer guuraaga dhalinyaradu ay ciyaar gudi jireen oo markaa ay golka fuulka ay qaadi jireen. markii dambena ay u bedeleen qolo loo oran jiray kabacad oo markaa iyagu kasoo dhiraandariyay miyiga oo u bedelay markaa heesahan sidii heleeloy iyo habka heesihii qaraamiga ay ka bilaabeen markaa ay kabacdi bedeleen. sababtan heestan ugu shidna waa sidaas, waxay kasoo dhiraandariyeen heesihii golka fuulka sidaasayna fanka ay ku sameeyeen. raggii fanka bilaabay runtii la xusi karo waxaa ka mid ahaa Allah u naxariistee ninkii loo jiray Balaayo Cas iyo Cagaf iyo raggii bilaabay kana bilaabay Hargeysa oo sababtan Hargeysa soo qaatay iyadoo heestan Hargeysana ka hadlayso kana hadlayso halkii heesaha laga soo dhiraandariyay ay ahayd ciyaaraha golka fuulka ay tumayeen markay halka ka yimaadeen magaranayay fanku saasaan lagu sameeyay fanka oo looga dhigay heesii qaraamiga ahaa. markaasuu fanku kusoo aflaxay lagana soo bilaabay runtii fanka. haddii aan runtii ka hadlo abwaanadii markaa fanka casriyey ama habeeyey ee fariisiyey oo markii hore heeladaas la qaadi jiray laakiin raggii ugu horeeyay riwaayadaha sameeyey ee fariisiyey inay riwaayad samayn karaan oo riwaayadu ay ku jireen kaalintan filimada oo kale ay caalamku filmo wax la dhahay daawadaan laakiin inaga xagga filimada waxa noogu jiray qaybtan riwaayadaha oo hab masraxeed oo sideedaba suugaantu waxay u qaybsantaa gabay iyo geeraar iyo jiifto iyo buraanbur. waa afarta qaybood ayuu fanku kaliyay. marka gabay oo hebel waa gabaya hebelna waxa weeyaan wuxuu sameeyaa oo hebel waa gabaya hebelna waa abwaan waxa la ninka riwaayadaha sameeyay laakiin inaan riwaayada sameyn abwaan way ku sheegan Soomaalidu laakiin inaan riwaayad sameyn abwaan maaha. raggii riwaayadaha sameyn jireen ba abwaan ahaa oo caan ahaa. marka jiiftadu waa heesahan faraha badan maqasaan jiifto weeye. geeraarkuna waa kan ku jira heesaha matalan geeraaradii ku jiray oo kale riwaayadaha oo kale ummadii hay watiinkii oo daxaaga lagu dhalay ama dise heestan beledweyne oo kale geeraar baa ku jira. heeso badan oo aad maqasheen geeraaraha ku jira inta yare geeraar bale intaas. buraanburkana dumarka tiriyo waa dumarkaas kale buraanburkana. gabiguna waa raggeenii hore ee gabi jiray ka hor riwaayadahan intaan soo bixin. markaan qiimeeyay anu abwaanada ayaan waxaan u kala qaaday 1 2 3 4 ayaan kala siiyay. abwaanka koobaad waxaan ka dhigay idinku dadkiina yaqaan suugaantuna halkan comment baad soo sameeysan wixii qofku waa bashar uu qaldabi karaa wixii aan ku qaldamo waad soo sixi kartaan khusuusan waliba dadka suugaanta ka soo jeeda qaar ahaan Hargeysa oo hoygii suugaanta dad ka soo jeeda way ila soo talin karaan ama dadka suugaanta si fiican suugaan daadiga meesha doonaha ku dhashaan Soomaalida ha ahaadaan way soo siin karaan wixii aan ku qaldamay. abwaanka number 1 kala siiyay abwaanada ugu horeeya marka la eego dadka halkii fanka soo baxay raggii wanka ka dhigi jireen. abwaankii koobaad wuxuu ahaa Saxadiid Maxamed Jabiye ayaa number 1 ahaa oo sameeyna heestii aan maalaha sheedna maandeeqe
heestii kala ahayd Soomaaliya kulliga kadaba dhaha heesaa ninkii lahaa wadaniga. waxaa ku jira cali, waxaa ku xiga lambarto cali Sugule oo isaguna lahaa heestii waagaa bariyay bilicsan arooryo boqsan maalin boqoliyo dhaarartan dhulkaygii la soo noqday heesa maxamed Salebaan Qaado. waxaa ku xiga markaa lambar 2 wey isagu waa ninka labaad xagga ku xiga Isxadiid. ninka saddexaad waxaa wey Cismaan Askari oo isaga laftigiisu ahaa raggii hore riwaayadaha sameeyay raggii ugu horeeyay ahaa. waxaa ku xiga Axmed Salebaan Biddo. Axmed Salebaan Biddo laftigiisu waxaa raggii isaga laftigiisu 59 meelaha sameeyay. Isxadiid 54 buu ahaa waqtigu soo galay fanka. cali Sugule laftigiisu 55 meelaha. Cismaan Askari 58. Axmed Salebaan Biddo 59. xasan sheekh muumin oo ahaa ninkii ugu horeeyay riwaayadii 61 la sameeyay. ninkii sameeyay waa xasan sheekh muumin ahayd Shabeelnaagood. waxaa ku xiga maxamed waxaa ku xiga markaa maxamed cabdilaahi ciise sangub oo isaga laftigiisu riwaayadiisii ugu horeysay 64 sameeyay. tig labaadna 66 sameeyay. waxaa ku xiga maxamed warsame hadraawi oo isaguna 68 sameeyay riwaayadii ugu horeysay. maxamed cabdilaahi gujis oo 69 sameeyay. cabdi aadan cabdi qays oo isaga laftigiisu 68 riwaayada sameeyay. ciise warsame samatar oo isaga laftigiisu raggii ugu horeeyay 70-yadii riwaayadaha sameeyay. xasan geni oo 74 sameeyay iyo maxamed cali kaari oo isaga laftigiisu 70-kii ahaa. 12 nin baan ka dhigay runtii ragga xagga fanka ugu horeeya. wala ay jireen rag khatar oo aan xusi karo reer Djibouti in la raaa xasan cilmi isaga laftigiisu ninka ugu xagga riwaayadaha ugu badan waxa af Soomaali ku hadla iyo Ibrahim Gadle oo iyagu waxay reer Djibouti baa ragga laftigiisu riwaayado badan iyo heeso badan bay lahaayeen. insha Allah next time bal abwaanada aan tiriyay mid u istaagi doonaa sida iyo nooli koronte intaan hawada ku kulmi doono nabadgelyo.